Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaamaya asxaabta nagu xiran. Maanta waxaan idiin wadaa qaabka loo sameeyo muuqaal reaction ama video reaction ah. Qaabka loo sameeyo adigoo isticmaalaya CapCut. Haddaa u baahantahay application kale, qaybta comment way igu soo qori kartaa. Insha Allah muuqaalan kasoo suubinaya. Marka KineMaster waan kasoo hadlay muuqaalka ku jira qaabka loogu sameeyo reaction. Marka hadda waxaan idin tusinayaa adigoo isticmaalaya application la dhahay CapCut sida reaction loo sameeyo. Marka isla socono muuqaalka ilaa dhamaadka. Application-ka isticmaali doono waxaa la yiraahdaa CapCut sida in kuu sheego. Marka App Store ama Play Store ayaa tagaysaa, CapCut ayaa ku qoraysaa ama search ayaa leedahay. Application-kan ama kala soo degaysaa si toos ah. Anada waqti badan ay isticmaalaya update video ay saarkaysan laakiin dhib ma laha soo saarsan isticmaalaya application-kan. Marka hata watermark ma laha lacag ka mar free waaye. Marka waxa calaamad oo application-ku tusinaya kuma saaray. Marka application-kan gudaha u gelina insha Allah. Marka halkan ay imanaysa application-ka soo furto. Halkan ayuu ku keeni doonaa marka new project meesha ku qoran dalkan plus-ka ku dhufanaysa. Marka waxa la soo degaysaa wax soo gashanaysaa muuqaalkii reaction-ka adigi muuqaalka adi iska duubaysa reaction-ka ma muuqaalka adi iska duubaysa halkan soo gelinaysa. Mathalan had muuqaal aan ka soo qaadanaya. Wuxuu ahaada muuqaal iska soo qaadanaya halkan. Mathalan muuqaalkana soo qaatay. Muuqaalka markuu muuqaalka adi iska duubaysa marka muuqaalka reaction-ka inaad dul saartaa rabtaa. Soo saarnay halkan ku dhufanaysa meeshan calaamadan overlay ku qoran tahay halkan ku dhufanaysa add overlay ku dhufanaysa balastas muuqaalkii marka reaction-ka ka suubin lahayd ay soo gashanaysa halkan. Wuxuu ahaado muuqaalka reaction ka suubin lahayd halkan soo gashanaysa. Mathalan muuqaalan iska soo gelinaya. Mathalan muuqaalkan iska soo gelinaya. Marka screen-ku ku soo fuulaya marka waa resize gareynaysa waa yareynaysa saarkaysan. Waa yareynaysa size-ka rabtaa ka dhiganaysa. Wajigaada iyo muuqaalkaada kala sidoo ku qarin koonana gashanaysa. Koonaa masadhaxdan koonaas meesha adi kula fiican oo gashan karta ayaa gashanaysa. Haddaa rabto muuqaal introduction ah soo bisatay halkan introduction kugu jira naan muuqaalkan gadaal dambe inuu ka bilowdo darta halkan qabanaysa meesha inaas ka bilowdo rabtaa geynaysa. Halkaas muuqaalkaas meesha ka sii bilaabanaysa arkaysan. Meesha markuu joogo ayuu bilaabanaya. Haddaa u baahanto muuqaalna isla bilowdo hal mar rabta halkan keenaysa. Haddaa gadaal geerid gadaal keenaysa. Haddaa muuqaalka reaction-ka wax ka jari rabtid asaga kali galinaysa waa jaraysa. Andana baadkan dhaxda ku jiro jar rabtaa. Hadda dhinacan waa ka jarnay dhinacan waa ka jaraysa. Dhaxdan amal aan iska bixin rabaa mo waxay ka qaldan. Waan jarayaa waan meeshan gareynaya sana u soconay delete ku dhufanaya si toos u baxaya. Kana soo qabanaya soo ceshanaya isu keenaya. Haddaan soo ceshan rabo baadkayga hore halkan ku dhufanaya andana bal qaladan suubi waa iska delete gari soo ceshan rabo marka halkan ku dhufanaya. Saarkaysan sidii soo ku soo laabanaya muuqaalka saarkaysan. Marka muuqaal reaction saas loo suubiyaa wixii su'aal oo qabtaan way soo weydiin kartiin insha Allah. Marka halkan waa kana application-ka markuu dhamaado video markuu dhamaado halkan wuxuu ku tusinayaa watermark ama calaamadii app-ka. Marka calaamadda app-ka saas iskaga bixisa halkan ku dhufanaysa. Calaamadda app-ka ama mention gareynaysa delete-tana ku dhufanaysa. Si toos u ka baxaya marka watermark. Halkaas free marka application-ka free si toos muuqaalka download leedahay halkan ku dhufanaysa. Si toos link-kan halkan soo maray halkan soo maray download ku dhamaanaya marka. Marka hadaan ma download gareyn rabo ka noqonaya. Marka insha Allah wixii su'aal qabtiin way soo weydiin kartiin insha Allah khayr rajeynaya.